السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت حنكا هذه دونا هدي لها إدمو وحددي سقالات كتابك أها العربية بين يديك جزكي سي لبعض 10 كنا و10 كي كنتون يكواد 10 كعوانك سوحوية هي ندوة عن العولمة. ندوة وحوية واسيميناركا ندوة داس أو كتابسا عولمة دو عالميين تا أما با اسكو حرده أدون كودان إن لا اسكو حرو أو لا اسكو فرو ganacsigiisa iyo mataqaanaa xuduudihiisa iyo ayaa la dhahaa cawlama waa caalamiyiinta waa nadwatun can alcawlama waa siminaar ka hadlaya caalamiyiinta. Zaynab iyo Faaduma ayaa sheekaysanaya oo wada sheekaysigana uu ka dhaxeeya. Zaynab ayaa hadalkii bilowday, waxay tiri kaanat waxay ahayd nadwatan siminaar mufiidatan faa'iido badan ayay ahayd. limaada lam taxduri maxaad u imaan weyday? siminaar faa'iido badan buu ahaaye maxaad u imaan weyday? Faaduma waxay tiri kuntu waxaan ahaa amsi shalayto mashquulatan mid mashquulsan. zaaranaa waxaa noo yimid bacdu duyuufi martida qaarkood ayaa noo yimid. marti ayaa noo timid shalayto oo na soo booqday. waayahay zaaranaa waxaa na soo booqday bacdu duyuufi martida qaarkood ayaa na soo booqday, saa daraaddeed shalayto waa mashquulsanaa. Zaynab waxay tiri xadarati nadwada waxaa yimid oo soo xaadiray mucdamu mudarisaati aljaamica jaamacadda gabdhaha wax ka dhiga ee waxbarayaasha ka ah mucdamkoodii iyo badidoodii ayaa yimid. wa taalibaatihaa iyo ardaydii jaamacadda wax ka baran jirtay ee gabdhaha ahaa ayaa iyaguna yimid. waayahay waa jaamacad ay gabdho iyo gabdhana macallimiin ka yihiin, gabdhana ay waxaweye wax ka bartaan. Faaduma ayaa hadalkii sii waday oo waxay tiri maada xadatha maxaa dhacay fi nadwati nadwada dhexdeeda maxaa dhacay? waayahay Zaynab ayaa waxay tiri kaanat waxay ahayd almutaxadithaatu gabdhaha sheekaysanayay fariiqayni laba kooxood bay ahaayeen. fariiqan koox yadcuu wuxuu ugu yeedhayay ila alcawlamati in la caalamiyeeyo oo adduunka la isku xidho. wa fariiqan koox kale oo gabdhaha ka midana yarfudu wuu diidayey oo uu ka soo horjeeday alcawlamata caalamiyeynta iyo adduunka in la isku xidho. Faaduma ayaa hadalkii sii waday oo waxay tiri wamaa xujatu kullu fariiqin xujada iyo caddaynta iyo daliilka xuja waa daliilka iyo caddaynta daliilka ay koox waliba haysatay muxuu ahaa? wamaa xujatu kullu fariiq kasta iyo koox kasta daliilka uu haystay muxuu yahay? muxuu daliishanayay? Zaynab waxay tiri yaquulu alfariiqu alawal wuxuu leeyahay fariiqa hore kooxda hore waxay leedahay oo ay tiri satu'addii waxay keenaysaa alcawlamatu caalamiyeynta oo adduunka in la isku xidhaa ilaa tanmiyati jamiici duwal inay horumaraan. tanmiya waa horumarka dhammaan dowladahoo dhan, jamiicu duwal dowladahoo dhan inay hormaraan ayay keenaysaa ayay dhaheen. khaasatan gaar ahaan adduwal alfaqiira dowladaha waxa weeye wax mahaysatada ah ee fuqarada ah saboolka ah ee waxba haysanin. Faaduma waxay tiri wamaada yaquulu muxuu leeyahay alfariiqu athaani kooxda labaadna muxuu leeyahay oo ay dhaheen? Zaynab waxay tiri yaquulu wuxuu leeyahay ina alcawlamata caalamiyeynta in adduunka la caalamiyeeyo satu'addii waxay keenaysaa ilaa haymanati duwal dowladaha duwal alghaniya ilaa haymanati duwal alghaniya dowladaha hodanka ah. alghaniya waa hodanka, dowladaha hodanka ah in waxa weeye ay qabsadaan cala duwal alfaqiira dowladaha fuqriga ah ee saboolka ah inay qabsadaan ayay keenaysaa. marka haymana waa saydara waa qabsashada iyo xukumidda inay xukumaan dowladaha hodanka ah dowladaha saboolka ayay taasi keenaysaa. Faaduma waxay tiri wakayfa intahat nadwa see ayay kusoo dhammaatay siminaarkii see ayuu kusoo dhammaaday? Zaynab waxay tiri daara waxaa dhex maray niqaashun dood iyo hadal ayaa dhex maray. doodaasoo saakhinun kulul bacda nadwati siminaarka kadib dood waxa weeye kulul baa meeshii ka dhacday. warafada waa ay diideen mucdamu alxuduuri dadkii yimid meesha badidoodu waa ay diideen alcawlamata caalamiyeynta
in adduunka o dhan la isku xidho. faaduma waxay tidhi limaada maxay u diideen? zaynab waxay tidhi lianna duwala alghaniya dowladaha hodanka ah satufridu waxay ku waajibinaysaa oo ku waxa weeye soo rogaysaa waxay ku soo rogaysaa luqaatihaa luqadaheeda ayay ku soo rogaysaa oo ku waajibinaysaa wa thaqaafaatihaa iyo aqoonteeda. athaqaafa waa aqoonta waxay doontaba ha ahaatee iyo waxa weeye dhaqankooda waad dhihi kartaa. wa thaqaafaatihaa iyo dhaqankeeda cala duwal alfaqiira dowladaha fuqarada ah ayay ku soo rogaysaa. aqoonteedii iyo dhaqankeedii ayaa ay ku soo rogaysaa dowladaha qaniga ah waxay ku soo rogayaan dowladaha fuqarada ah. faaduma waxay tidhi ana attafiqu waa ku waafaqsanay maca hada ra'yi ra'yiga isaga ah waa ku waafaqsanay. zaynab waxay tidhi wa ana akhtalifu waa kaa gadisanaha waa kugu khilaafsanahay macahu ra'yigaas waan kaaga gadisanaha kugu khilaafsanahay. alwaxdatu ataasica waxaan weli ku dhex jirnaa chapterkii 9aad ayaan ku dhex jirnaa amaba cutubkii 9aad. waayahay darsiguna waa 10kii 50aad marka xagga kitaabka la fiiriyo. tahyi-a waa diyaar garoobid. fakir ka fakar fi lijaabati ka jawaabidda iyo saad uga jawaabi lahayd can ilasilati taaliya su-aalahan soo socda. su-aasha koowaad waxay tahay hal saara alcaalamu adduunku miyuu noqday qaryatan waaxidatan hal tuulo oo keliya? kayfa haddii uu noqday hal tuulo oo keliyana seebuu ku noqday? maa duwalu shimaal maxay yihiin dowladaha waxa weeye loo yaqaano dowladaha waqooyiga maxay yihiin dowladahaasi? hal hiya qaniyatun dowladahaasi ma yihiin kuwa hodana am faqiiratun mise waa kuwo saboolo aan waxba haysanin? lambar 3 maa duwalul junuub maxay yihiin dowladaha dega adduunka koonfurtiisa dowladaha dega maxay yihiin? hal hiya qaniyatun dowladahaasi ma yihiin kuwo hodana am faqiiratun mise waa kuwo aan waxba haysanin oo saboola? lambar 4 fi ayi albilaadi wadankee ayuu yakhuru ku badan yahay almaradu xanuunku waljahlu iyo aqoon darrada? limaada muxuuse ugu badan yahay? ciwaanka 10ku markaa wuxuu yahay duwalu shimaal wa duwal junub. duwalu shimaal waa dowladaha dega waxa weeye waqooyiga adduunka. wa duwal junub waa dowladaha dega waqooyiga koonfurta adduunka. waaya asbaxa alcaalamu adduunku wuxuu noqday alyawma maanta qaryatan tuulo saqiiratan yar ayuu noqday. marka xagga isku xidhnaanshaha iyo sida macluumaadkii loo helayo iyo sidaad waddan kale markiiba ku tegaysid iyo marka laga fiiriyo jaanibkaas wuxuu noqday adduunkii tuulo yar ayuu noqday. maxaa keenay inuu tuulo yar noqdo? bisababi wasaa'ili naqli marka la fiiriyo sababta wasaa'ilu naqli gaadiidka alxadiidati cusub. sababta gaadiidka cusub marka la fiiriyo adduunku wuxuu noqday tuulo yar oo wasaa'il alitisaal iyo adeegyada iyo qalabka lagu wada xiriiro amaba isgaarsiineed alxadiidati ee cusub. alitisaal waa isgaarsiinta. kayfa yaciishu see ayay u nool yihiin sukaanu hadihi alqarya tuuladan dadka degan asaqirati ee yar? inanii anigu adcuuka waxaan kuugu yeedhayaa yaa saaxibi saaxiibkayow liziyaarati hadihi alqarya inaad booqatid tuuladan asaqirati yar. tuuladan yar inaad booqatid baan kuugu yeedhayaa. hayaa inakeen natajawal aan wareegna fiiha tuulada yar aan wareegnay adduunko dhan aan ku wareegnay inakeen buu leeyahay. wanandura aan fiirinay kayfa yaciishu say u nool yihiin sukaanuhaa dadka adduunka degan. sa asxabuka waan kula saaxiibaya kugula rafiiqayaa oo aan ku kaxaynayaa maciila jirkayga fi daa'iratii diyaaradayda. inanii anigu amliku waxaan haystaa daa'iratan diyaarad ayaan leeyahay sariicatan deg deg badan asracu taasoo ka deg deg badan min asawti hadalka iyo dhawaqa iyo codka way ka deg deg badan tahay. tafadal waxa weeye waa soogal weeye. tafadal soogal yaa saaxiibi saaxiibkayo irkabi daa'ira diyaaradda fuul. wahayaa bina inakeen nandaliq aan baxna oo tagna naxnu anagu nadiiru waan duulaynaa al'aana hadeerto fowqa duwal shimaal hadda waxaan kor soconaynaa dowladaha waqooyi korkooda
iyo dushooda ayaan soconnaa. waayahay way duuleen marka waxay kor socdaan dowladaha waqooyi ayay kor socdaan. undur fiiri ilaa haadihi duwal, dowladahan fiiri buu yidhi. inahaa iyadu duwalun qaniya, dowladahan aan kor soconno waa dowlado hodana. tamliku waxay haysataa alquwata awood ciidan iyo mid saanad iyo mid waxa weeye warshado iyo mid dhinac kasta waa ay ka dhisan yihiin. walcilma iyo aqoonna waa ay haystaan. walmaala hanti iyo xoolana way haystaan. undur fiiri ila annaasi dadka fiiri inahum iyagu aqniyaa'un waa kuwa hodana oo wax haysta. fi hadihi duwal dowladaha kuwa ku nooli waa dad hodan ee fiiri buu yidhi. yalbisuuna waxay xidhan yihiin yalbisuuna waxay xidhaan ajmala thiyaabi dharka u quruxda badan. wahum iyaguna asixaa waa kuwa caafimaad qaba. wayaciishuuna way nool yihiin fii buyuutin guryo ayay ku nool yihiin jamiilatin qurux badan. ma akthara almadaaris maxaa ka fara badan iskoolada. waljaamicaat iyo jaamacadaha maxaa ka fara badan. walmustashfayaati iyo isbitaalada amaba dhakhtarada waxaad ahdidba. walmasaanici iyo warshadaha. walmasaarici iyo beeraha huna halkan. alla meeshuu beera badanaayo iskoolla badanaayo jaamacada badanaayo dhakhtara badana. inahum iyagu yaciishuuna way nool yihiin fii amnin nabadgelyo ayay ku nool yihiin. warakhaa'in iyo barwaaqo waaya barwaaqo sooran ayay ku jiraan. hayaa nazuuru inakeen aan booqano aljaanib alaakhar dhinaca kale oo min alcaalami adduunka ah. dhinaca kalena bal inakeen aan soo booqano oo adduunka dhinaca kalena aan tagnay. haadihi duwal aljunuub kuwan aan kor duulayno ee kor soconno waa dowladaha koonfureed. inaha iyadu duwalun faqiiratun waa dowlado sabool oo aan waxba haysanin. laa tamliku ma haysato alquwata awood. wala alcilma cilmina ma haystaan. wala almaala hanti iyo xoolana ma haystaan. undur fiiri ilaa haulaai naas dadkan fiiri inahum iyagu fuqaraa'un waa dad sabool oo aan waxba haysanin. yalbisuuna waxay xidhaan thiyaaban basiidatan dhar liita ayay xidhaan. dhar hooseeya ayaa ay xidhaan. waayahay dhar oo iska waxa weeye rakhiisa ayay xidhaan oo ebera oo aan waxba ka jirin. waaya yalbisuuna waxay xidhaan thiyaaban dhar basiidatan liita oo mataqaanaa hooseeya. wayaciishuuna waa ay nool yihiin fii buyuutin guryo ayay ku nool yihiin sakiiratin waxa weeye yar guryo yaryarna waa ay ku nool yihiinoo guryahooduna waa yaryar yihiin. wa mucdamuhum intooda badanna mardaa dadka halkan degan waa dad xanuunsan. waa dadka adduunka junuubkiisa degan. ma aqala almadaaris maxaa ka yar iskoolada. waljaamicaat iyo jaamacadaha. walmustashfayaati iyo isbitaalada. walmasaanici iyo warshadaha. walmasaarici iyo beeraha huna halkan. limaada yataqaatalu nnaasu maxay dadku u dagaalamaan fi hadihi albilaad wadamadan maxay dadku u dagaalamaan. walimaada yantashiru dheh muxuu u baahaa amaba u fidaa. waayahay alfaqru faqrigu muxuu u fidaa. walmaradu iyo xanuunku iyo waljahlu aqoon daradu huna halkan maxay ugu badan tahay. waxyaabaha kani maxay halkan ugu badan yihiin. yaa lahaa min xayaatin alla maxay tahay noloshani. alla maxay tahay noloshani. waa maxay noloshani. yaa lahaa min xayaatin waa maxay noloshani. waaye nolol eber weeye maxay tahay nolosha tani. hal ra'ayta ma aragtay yaa saaxibi saaxiibkayow haadihi alqarya tuuladan maaragtay asaqirati ee yar. yaciishu way nool yihiin nisfu sukaaniha tuuladan yar dadka degan barkii. nisfu waa bar sukaanna waa dadka degan. nisfu sukaaniha dadka degan adduunyada barkii waxay ku nool yihiin fii rakhaa'in waxa weeye barwaaqo sooran barwaaqo ayay ku nool yihiin. waaye wayaciishu way nool yihiin annisfu alaakhar waxa weeye qeybta kalena fii faqri iyo saboolnimo iyo gaajo ayay ku nool yihiin. wa xarbin iyo dagaal. limaada maxay bay laa yaciishu aysan u noolayn jamiicu sukaani alqarya qaryadan dadka degan dhammaantood maxay ugu noolaan waayeen fii rakhaa'in barwaaqo sooran barwaaqo maxay ugu noolaan waayeen. wa amnin nabadgelyo maxay ugu noolaan waayeen. adduunka dadka ku nool dhammaantood qaryadan marka adduunkiibu ka wadaa. waaye dadka adduunka ku nool oo dhan maxay ugu noolaan waayeen barwaaqo sooran iyo nabadgelyo maxay ugu noolaan waayeen. hal yaxduthu daalika taasi ma dhacaysaa fii yowmin maalin oo min al ayaami maalmaha ka mid ah. allahu aclam ilaahay baa og.
casharkeeni maantana intaas ayuu ku egyahay. casharkan cashar lamida intaan ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.